dunida waxaa ku yaala goobo dabiici ah oo la yaab leh, balse qaar ka mid ah waa meelaha ugu halista badan ay adag tahay in bani'aadamku uu ku noolaado. Jasiiradda Masaska ee ku taalla xeebaha Brazil waxa ay hoy u tahay kumanaan masas oo halis ah, kuwaasi oo ka dhigay meel ay tahay in laga digtoonaado. Jasiiraddani waa hoyga masaska oo aad ugu badan halkaasi. Waxaa la sheegay in 1 mitir 2 jibaaran oo jasiiradda ahi ay ku nool yihiin ugu yaraan mas ka badan mid, taasi oo ka dhigaysa meel ay adag tahay inaad cagta dhigto adiga oo aan mas arkin. Jasiiraddani waxay ku taallaa badweynta Atlantic, qiyaastii 33 mayl badeed oo u jirta xeebaha magaalada Paulo ee Brazil. Jasiiraddani waa mid yar oo cabbirkeedu yahay ku dhowaad 43 hektar, balse waxaa ku nool nooleyaal ka dhigay mid aad loogu cabsado. Masaska jasiiraddani waxa ay ku nool yihiin bannaanka jasiiradda, gaar ahaan geedaha, dhagaxyada iyo dhulka ku yaala jasiiraddani. Waxaa gaar ahaan loo yaqaanaa nooca halista ah ee masaskani Golden Viper, kuwaasi oo aad ugu badan jasiiraddani. Golden Viper-ku waa mas noociisu ku nool yahay dhulka iyo geedaha, mana ahan masaska badda ku nool sida noocyada kale ee masaska biyaha jecel. Waxay ugaarsadaan shimbiraha ku soo dega jasiiradda, kuwaas oo ay ku dilaan suntooda halista ah, taasoo u joogaan dhulka ama geedaha. Jasiiradda oo dhan waa meel ay masasku qabsadeen, iyaga oo ka dhigaya meel aysan dadka badani booqan karin sababo la xiriira halista sunta maska ay leedahay. Sunta masaskani waa mid awood leh oo si degdeg ah u burburisa unugyada jirka. Hal qaniinyo oo uu qofku dhufan karo ayaa sabab u noqon karta dhimasho haddii aan si degdeg ah loo helin daaweyn. Masaskani laguma arko meelaha kale ee dunida. Waxaa lagu qiyaasaa in ay jiraan boqolaal ilaa kumanaan mas oo ku nool jasiiraddan, iyagoo ku nool geedaha iyo dhulalka dhagaxa leh. Jasiiraddani horay waxa ay u ahayd meel dhulweynuhu ku xirnaa, balse kumanaan sano ka hor badda ayaa sare u kacday oo go'doomisay jasiiradda. Masaskii ku noolaa halkaasi waxa ay ku qasbanaadeen in ay la qabsadaan deegaankan cusub, taasi oo sababtay in ay yeeshaan awoodda sun aad u halis ah si ay ugu adkaadaan ugaarta ay cunaan sida shimbiraha. Biyaha ku hareeraysan jasiiradda waa kuwo dabiici ahaan loogu dabaalan karo, maadaama aysan jirin halis toos ah oo ka imaanaysa masaska biyaha dhexdiisa. Masaska jasiiraddani ku noolna waa nooca Golden Viper-ka oo ku nool dhulka oo keliya, gaar ahaan dhirta iyo dhagxaanta. Waxay gebi ahaanba ka maqan yihiin biyaha. Si kastaba ha ahaatee, Brazil waxa ay si adag u mamnuucday dadku inay cagaha dhigaan jasiiraddani sababo la xiriira halista masaska aadka u sunta badan. Inkasta oo aysan jirin masas biyaha ku nool, haddana waxaa muhiim ah in la ogaado xaaladaha biyaha sida qulqulka jawiga iyo cayayaanka kale ee biyaha ku nool ka hor inta aan la dabaalanin, sababo la xiriira in goobtu ay tahay mid laga ilaaliyo dadka. Shil kasta oo dhaca waxaa laga yaabaa in gurmadku uu waqti dheer qaato. Waxaa si aad ah loo xadiday safarka halkaas lagu tagi karo. Dowladda Brazil ayaa mamnuucday in qof aan ruqsad rasmi ah haysan uu tago jasiiradda. Waxaa loo oggol yahay oo keliya cilmi-baarayaasha aqoonta leh iyo ciidamada badda ee ilaalinaya deegaanka. Jasiiraddan masaska oo ku taalla Brazil ayaa magacani loogu bixiyay sababo cad oo ku saabsan tirada badan ee masaska halista ahi ee halkaasi ku nool. Waxaa jira dhowr arrimood oo ka dhigaya magaca jasiiradda masaska mid aad ugu habboon in ay caan ku noqoto masaska, gaar ahaan kuwa halista leh. Masaska Golden iyo Lancewood ayaa si gaar ah jasiiraddani ugu nool, waxaana la rumaysan yahay inay halkaasi ku noolaayeen kumanaan sano ka hor. Suntu
waxay u fududaysaa inay ugaarsadaan shimbiraha maadaama aysan xayawaano kale halkaasi joogin. Jasiiraddani waxaa ku xeeran sheekooyin badan oo cabsi leh, sida dad halkaas tegay oo masasku suntooda u dhintay. Waxaa kale oo la sheegaa in masaskani ay si dhaqso leh ugu dhigeen jasiiraddani meel dad la'aan ah, taasi oo dadka ka reebtay inay halkaasi ku noolaadaan. Erayga Kwai Maida oo ah luqadda Baraasiilka waxaa loo isticmaalaa in uu tilmaamo dhul hore loo gubay, maadaama dadkii hore ee isku dayay inay halkaasi ku noolaadaan ay isku dayeen in ay jasiiraddu ka nadiifiyaan masaska iyagoo dab ka dhex huriyey. Si kastaba ha ahaatee, dadaalkii waa uu fashilmay, waxaana masasku ay dib u qabsadeen jasiiradda. Sababahan oo dhan ayaa ka dhigay in magacani uu si rasmi ah ula xiriiro halista iyo masaska ay jasiiraddani caanka ku tahay. Maanta, jasiiradda masasku waa mid ka mid ah meelaha ugu halista badan dunida ee la booqdo. Jasiiraddani waxay leedahay sheekooyin badan oo cabsi leh oo ku xeeran halista masaska sunta leh ee halkaasi ku nool. Inkasta oo qaar ka mid ah sheekooyinkaasi ay noqon karaan khiyaali ama dib u waramin la buunbuuniyey, haddana waxay qayb ka yihiin sumcadda halista leh ee jasiiraddu leedahay. Mid ka mid ah sheekooyinka ugu caansan waa sheekada ku saabsan qoyskii ka shaqaynayay iftiinka nalka ee ku yaala jasiiradda. Waxaa la sheegay in qoyskani degganaa jasiiradda qarnigii 20aad, in masasku ay gudaha u soo galeen gurigii qoyska, halkaasi oo ay ku qaniineen dhammaan xubnihii qoyska. Dadka qaar ayaa sheegaya in qoysku ay isku dayeen in ay baxsadaan, laakiin masaska ayaa ugaarsaday inta ay guriga ku jireen. Waxaa jira sheeko ku saabsan kalluumaysato u soo dhowaanayay jasiiradda iyagoo raadinaya hoy ka hor inta aysan dabayl xooggan dhicin. Markii ay cagaha dhigteen jasiiraddani, masaska ayaa si degdeg ah u weeraray. Waxaa la sheegay in markii dambe meydadkoodii laga helay jasiiradda, iyagoo ay si xun u qaniineen masaska sunta daran leh. Sidoo kale, waxaa jira in dadkii isku dayay in ay nadiifiyaan jasiiradda masasku ay isticmaaleen dab xoog leh, iyagoo damacsanaa inay masasku ku baabi'iyaan. Hase yeeshee, masasku waxa ay ku sii faafeen dhulka oo dhan, taasi oo ka dhigtay in jasiiraddu si buuxda ay u qabsadaan. Dadaalkaasi ayaa lagu sheegay inuu keenay dhimashada qaar ka mid ah dadkii hawshaasi isku dayay. Masaska goobtani waxa ay ku tiirsan yihiin ugaarsiga shimbiraha inta badan ku soo dega jasiiradda iyaga oo aan ka warqabin halista. Sheekooyin ayaa sheegaya in mararka qaar shimbiro waaweyn lagu arko iyagoo aan awoodin in ay duulaan kadib marka ay masasku qaniinaan. Tani waxay cabsi gelisay kalluumaysatada agjoogta oo arkay in ay tahay jasiirad dhimasho oo nooluhu ku sii dhimanayaan. Sidoo kale, waxaa la sheegay in koox cilmi baarayaal ah oo jasiiradda u tagtay in ay daraasad ku sameeyaan masaska aysan dhammaantoodii ka soo noqon. Sunta masaska ayaa si degdeg ah u dilay qaar ka mid ah cilmi baarayaasha ka hor inta aysan helin gurmad. Sheekadan ayaa ka dhigtay in ay cabsida ku xiran tahay cilmi baarista noocan ah. Dad badan oo deegaanka u dhow ayaa ku andacooda in jasiiraddu ay leedahay nabaro shaydaan, maadaama masaska halista ahi aysan ku noolayn meelaha kale ee dunida. Waxa ay sheegaan in qof kasta oo ku dadaala inuu halkaasi ku noolaado ugu dambeyn uu ku dhammaan doono qaniinyada masaska. Badmaaxyada marabadda ku xeeran jasiiraddu waxa ay sheegeen in masaska qaar soo dhaqaajiyaan iyagoo ku dul socda laamaha geedaha si ay ugu booqdaan maraakiibta. Inkasta oo ay tahay meel halis badan, haddana jasiiraddani waxay leedahay qiime dabiici ah oo muhiim ah. Waxa ay hoy u tahay noocyo badan oo masas oo dunida kale aan laga helin, taas oo muhiim ka dhigaysa ilaalinta noolaha kala duwan ee jasiiraddani. Sunta masaskani waxaa loo isticmaalaa
baaritaanno caafimaad oo lagu horumarinayo daawooyinka ka hortaga cudurrada sida kansarka iyo dhiig-karka. Jasiiradani masasku waxayna baraysaa dhowr waxyaabood oo muhiim ah sida khatarta ilaalinta noolaha. Inkastoo masasku halis ay yihiin, haddana waa qayb muhiim ah oo ka mid ah nidaamka dabiiciga ah ee deegaanka. Qiimaha cilmi baarista meelaha la moodo in ay halis yihiin ayaa noqon kara halka laga helo xalalka dhibaatooyinka caafimaad ee bani'aadamka. Xadidaadda safarka dunida waxaa jira goobo dabiici ah oo muhiim ah in aan laga faragelin si looga hortago xaalufinta deegaanka. Jasiiradani waa mid ka mid ah meelaha ugu halista badan dunida, balse waa tusaale cajiib ah oo muujinaya awoodda dabiiciga ah iyo sida ay nooluhu ula qabsan karo xaaladaha adag. Inkastoo ay tahay meel laga cabsado, haddana waa goob muhiim ah oo loo baahan yahay in la ilaaliyo.